si fiican ii dhegayso haddii qof bini aadamihii uu kaa tago oo noloshaada uu ka baxo micnaheedu ma ahan in aad qiimahaagii weyday isku day bal inaad taa fahantid hadduu qof doorto in uu noloshaada faaruqiyo micnaheedu ma ahan in aadan qiimo lahayn waxaad ogaataa maalin buu garan doonaa qiimaha aad leedahay maalin buu garan doonaa micnaha aad u lahayd maalin buu garan doonaa qofnimadaada iyo kartidaada iyo shakhsiyaddii aad lahayd maalin buu qofkaasu ku soo xusuusan doonaa maalin aad tagtay ood fogaatay oo meel lagaa helaba dunida uusan garanaynin ayuu ku soo xusuusan doonaa weligaa ha ku baryin qofna inuu noloshaada ku jiro weligaa qof go'aan ku gaaray inuu kaa taga laguma dabadheganaado siidaa waddada ka horraysa ha ku socdo hawada uu kuu faaruqiyana ku raaxayso bini aadamku mar kasta oo la baryaba way ka sii daran mar kasta oo la baryaba qiimihii qiimo aan ahayn oo uusan dhammayn buu isa saaraa bini aadamka lama baryo inuu qof kaa tegayna micnaheedu ma ahan inaad wax weyn waayeysid maxaa yeelay qofkani shalay buu noloshaada soo galay hadduu ka baxayna dunidu ma dadla'a waxaad ogaataa inaadan cidla joogin marmarka qaarkood in dadka qaarkood ay noloshaada ka baxaan baa dhaanta inay kula joogaan inaad cidla ku sugnaatid baa dhaanta dadka qaarkood inay nolol kula wadaagaan dadka qaarkood oynu isku dhajinayno ma ahan kuwa inoo jilicsan mana ahan kuwa qalbigoodu inoo dhow yahay mana ahan kuwa kuu muujinaya naxariista aad adigu u haysid bini aadamku marka ay doortaan inay kaa tagaan waa la sii daayaa laguma dheganaado maxaa yeelay hadduu qof qiimahaaga garan waayo qiimahaagaa la gartaa qofka bini aadamkaahi maahan inuu qof kale qiimihiisa ka dhex raadiyo maxaa yeelay qofkaasu waa qurux badan yahay qofka bini aadamkaahi kartidiisa maahan inuu qof kale ka dhex raadiyo maxaa yeelay qofkaasu xooluu leeyahay qofka bini aadamkaahi maahan inuu qof kale shakhsiyaddiisa iyo bini aadantinimada meesha ugu sarraysay uu gaari lahay inuu ka dhex raadiyo maxaa yeelay qofkaasu qabiilkaasu ka soo jeedaa waxaasoo dhamme micno kuguma fadhiyaan jacaylka cid kale aad siinaysid jacaylkan keenay inaad ilmaysid jacaylkan keenayo qofkaan inaad tabtid jacaylkan keenaya inaad niyad jabtid maxaa yeelay qof baa noloshaada ka baxay naftaada u soo celi sida buuxdo awood aad ku heli kartood ruuxdaada uga adkaan kartid ugu kontrooli kartidna waa inaad adigu jacaylka naftaada horta siisid cid walbaba waxaa ka mudan naftaada maanta haddii aad cidla taagantahay oo dhaxan badani ay jirto bustaha aad huwanaysid ama ku beerta kaad u taqaanidba cid kale ma siiseen adaa huwanaysid marka hore haddaad qaawantaho cidla taagan tahay haddaad qaawantaho dhar la'adood cidla taagan tahay oo dhar maanta aad haysatid cid kale intaada siin naftaadaad siin lahayd sidaasoo kale naftaada ula dhaqan marmarka qaarkood xiriirada sunta ahi inay kaa go'aan baa dhaanta ood cidla joogtid marmarka qaarkood dadka qaarkood oo sun ah oo qalbiga kaa jebiya oo ku niyad xumeeya oo mar walba qalbigaaga u quura in ay meel xun uga tagaan oo ka ilmaysiiyaan waxaa dhaanta inaad cidla joogtid maxaa yeelay cidlada qiimaad ku leedahay maxaa yeelay qof bini aadamoo kaa tegay qiimahaaga kumaad waayin mar walba waad qurux badan tahay shalay markuu kuu imaanayana waad qurux badnayd maanta oo uu kaa tegayna qofkaas waad qurux badan tahay shalay markuu kuu imaanaya karti baad lahayd weli kartidaadii way kugu jirtaa wax la taaban karo oo la arko qofkaas uu kaala tegay ma jirto isagoo xortiisaabuu shalay kuu yimid maantana isagoo go'aankiisa ku socdo kaa tegay qofka bini aadamkahay markuu doorto inuu kaa tago waa la sii daayaa laguma dhego mar kastoo qof bini aadami uu go'aan gaaraba go'aankiisa waa lagu ixtiraamaa maxaa yeelay maalin buu shallayn doonaa maalin buu dareemi doonaa waxaad ugu fadhiday maalin buu garan doonaa meesha uu kaaga dhaqaaqay xanuunka ay leedahay waxaad adigu naftaada dareensiisaa in aad tahay qof xor ah oo doorasho leh shalay doorashadaaday ahayd maantana doorashadaada ha noqoto maxaa yeelay shalay dantaadaad moodaysa inay ku jirto maantana waa in aad dareentid ood hurdada ka kacdid inaysan dani kuugu jirin markaad damiirka noocaasa ku dhaqaaqdid ayaad naftaada ka adkaan kartaa marka damiirka noocaasi uu ku dhaqaajiyo ayaad odhan kartaa alla ilahay qof qiimihiisa yaqaanaan ahay adigu naftaadu yaysan kuu been sheegin oo ku odhanin qofkan qof ka fiicani dunida ma joogo maxaa yeelay hubaal waxaa qof ka fiicani dunida inuu joogo waxaa badan qalbigu inuu qof ku dheggan yahay oo uusan ka foqi karin maxaa yeelay qalbiga wuxuu aaminsan yahay qofkan qof ka fiicani dunida ma joogo waxaa keenay in aynu maanta xiriirada qaarkood oo sunta ah oo aan waxtar ka lahayn oo aan ku dhiirigelinin oo horumar ka lahayn oo dhan ay u socdaan aadan fahmi karaynin oo natiijo ka soo baxdaba marna arkaynin oo aan ficil horay u dhaqaaqa aan inabaysan ka muuqanin maxaa keenay inaynu ku dheganaano
maxaa yeelay waxaan aaminsannahay qofkan qof ka fiican dunida ma jiro maxaa yeelay waxaan aaminsannahay maskaxdeenu qaybteeda dambe waxay aaminsan tahay fakarka soo riixaya qaybtan hore waa qof kale ma helaysid qof isaga la midihi ma jiro haddaad sii daysay cidlaad dareemaysaa waa kala dhimanaanta adiga naftaadu ay dareemayso ee ma ahan qofkan inuu wax kugu soo kordhinayo maxaa yeelay qofkani kulamaba noola hadduu saaxiibkaa yahay iyo haddii qof aad xiriir idinka dhexeeya uu yahay dhankay doonto ha noqoto qofkan adiga habeen walba kulama seexdo magaaladaasuu kaa degan yahay bannaankaasuu maraya qof noocaasi sidee qalbigaagu u dareemaya sidee qalbigaagu u dareemaya in aadan dhammaystirnayn weli qalbigaagu waa nool yahay weli doorashadiisa xor buu yahay qofka bini aadamkahay marka uu doorto inuu kaa tago fadlan waddada u faaruqiyo siidaa gacmaha waxbaha ku dheganaanina siidaa ugu dambayn waxaan ku oranayaa codkan caloolxumada kugu dilaya ee calooshaadu sida inta isugu soo dhegto indhahaagana ay ilmadu ka burqanayso qalbigaaguna sidii quraaro jabtay uu noqonayo codkaa iska dami ha is oranin qofkaas haddii aan la joogi lahaa qofkaa haddii aan qofka bini aadamka ahi waxa wanaagsan buu u xiisaa hadduu qofkani wanaagsan yaho kuu fiican yahay miyuu kaa tegi lahaa miyuu kuu quuri lahaa inuu webiyaal ilmaa ku dhex fariisiiyo maya kuuma u quureen miyuu kuu quuri lahaa sidii guri gubtay oo baaba'ay oo kale qalbigaagu isagoo inuu cidlo kaaga dhaqaajiyo maya kuuma quureen aaway damiirkaagii bini aadantinimo aaway dhiiggii ku jiray qofka bini aadamkaa ee dhaqaajin jiray meeyi aaway dhiiggaagii damiirkaagii mee xagguu aaday ma isagaa qaatay damiirkaaga ka soo celi qofka damiirkaaga naftaada u soo celi naftaada waxaad ku dhiirigelisaa qof la'aantiis ayaad dhammaystiran tahay weligaaba qof bini aadamii kuma dhammaystiraynin weligaaba sidaadaad u dhammaystirnayd hadduu qof kaa tegayna micno ma lahan qof kale oo qiimahaaga iyo quruxdaada kugu mahadinayo oo ku garanaya oo subax kasta intuu ku soo hor istaago oranaya alxamdu lilah yaa rabbi rabbigii qofkan isiiyow adigaa mahad leh ayaad helaysaa haddii aad aaminsan tahay tusaale naftaada cashar ka baro shalay qof baad la socotay qof baad shalay isjeclaydeen qofkii wuu kaa tegey waad ilmaysay waad qalbi xumaatay waad iscalool xumaysay maxaa dhacay kadib haddana qof kalaad jeclaatay haddana sidii kii hore aad u jecleed ka badan baad haddana qofkan u jeclaatay haddana kii kalaad kala tagteen haddana barti baad caloolxumadii ku soo noqotay mushkiladdu waxay haysataa waa naftaada mushkiladdu waxa ay haysataa waa ruuxdan kugu jirta mushkiladdu waxay haysataa waa adiga ee maahan dadka waxa isqiime ridaya waa adiga waxa dhulka isdhigay waa adiga waxa aan fahmin qadarka uu leeyahay iyo sharaftiisa iyo cizigiisa waa adiga maahan cid kale adigu ilaa aad isgaratidna ha ka filin oo ha ka dhex raadin qof kale inuu qiimaha aad leedahay kuu fahmo maxaa yeelay qof walbaaba markuu ku darso in yar kula joogo oo ku arko daciif jilicsan inaad tahay ayuu madaxa kaaga istaagaya berrina wuu kaa dhaqaajinaya adigoo ilmeynayo qalbi jaban